وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا wararkii ugu dambeeyay oo idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena duhurnimada waxaa kamid ah qaar kamid ah wadaadadii ahlusunna wal jamaa ciidamadooda oo soo dhiibay dawladda federaalka Soomaaliya oo magaalada Dhuusamareeb lagu soo bandhigay hadaba maxaa keenay xilligan in ciidamada ahlusunna ay soo kala goostaan iyadoo qaar kamid ah saraakiisha ugu muhiimsanaad ay shalay soo dhiibeen ciidamada dawladda gaar ahaan kuwa 12aad ee ku sugan deegaanada Galmudug Sheekh Shaakir oo la sheegay inuu isaga baxay Bohol oo la sheegay inuu hadda ku wajahan yahay magaalada Garowe si uu halka uga duulo iyo wada hadal uu dhawaan la furay dawladda federaalka Soomaaliya oo uga baxay baadigoob hadda ay dawladdu ugu jirto xaaladihiisa ugu dambeeyay halka uu marayo ayaan daawada kula wadaagi doonaa qodobada kale oo aan idin haayana waxaa kamid ah kulan xalay dhexmaray Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale Diyaano oo ah taliyaha hadda jooga ee ciidamada BSF kulankaasi oo safgarad ku soo dhamaaday iyo kulan markaa loo balansan yahay Saciidani oo tugtaka ka dhamaaday isagoo istimada u sheegay in ninkaani uu madaxweyne Farmaajo wato khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay Dani iyo istimada iyadoo markaa hadda loo balansan yahay kulanka hadaba maxaa xalay kulankaasi looga wada hadlay maxaa lagu kala tagay Saciidani oo qodobada qaar ka tanaasulay kuwa kalena laga diiday daawada xogtaasi oo dhameystiran ayaa kula wadaagaya iyo gudoomiyaha gobolka Gedo oo ka hadlay xaaladda magaalada Garbaharey iyo sidoo kale warbixinada ugu dambeeyay arrimaha doorashada isagoona eedeymo dusha kaga tuuray ra'iisul wasaare Roble oo ku doonayo inuu Axmed Madoobe si xoog ah ku geeyo magaalada Garbaharey sidoo kalena uu doorashada isaga hoos keeno ujeedka ra'iisul wasaare Roble iyo Axmed Madoobe qorshaha ay dageen oo la ogaaday in dadka gobolka Gedo waxyaabaha ay ka dhigi doonaan ay barnaamijkeena ku daawan doontaan daawadayaal xaaladihii siyaasadeed ee ugu dambeeyay guud ahaan dalka mucaaradka xildhibaanadii ugu dambeeyay oo soo baxay nabad iyo nolol iyo kuwa mucaaradka halka doorashada kala rajooyinka laga qabo in fil Soomaaliya ay markale dib xukunka ugu soo laabato madaxweyne Farmaajo oo damac cusub soo galay iyo sidoo kale siyaasiyiin cusub oo la sheegay inuu ra'iisul wasaare u magacaabayo markii uu soo laabto xulufo qarsooneed oo hadda la soo baxay kaartooyinkiisa uu ku wajahayo siyaasadda ee barnaamijkeena ku daawan doontaan xaaladihii ugu dambeeyay ee maamulada Somaliland iyo sidoo kale Puntland iyo magaalada Boosaaso ayaa daawada kula wadaagi doona xaaladda Ukraine oo maalintii 7aad oo dagaal ka socdo iyo sidoo kale madaxweynaha Mareykanka oo ka hadlay dagaalka Ukraine ee u dhaxeeya Russia caasimadii oo qarka loo saaran yahay in la qabto shacabka iyo sidoo kale ciidamada Ukraine oo isdifaacaya dagaalka oo noqday mid faraha looga gubtay duqeymihii ugu dambeeyay oo Ruushka uu ku garaacay magaalada caasimadda ah ee Kyiv iyo magaalada labaad ee Kharkiv hadaba xagee ay xaaladahaasi oo idil ay marayaan xaaladda Itoobiya ee ugu dambeysay dagaaladii iyo warbixinadii ugu dambeysay ee laga helay khilaafkii u dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti oo la soo gabagabeeyay madaxweyne Farmaajo Ismaaciil Cumar Geelle oo heshiiyay warbixintan ku daawan doontaan qodobada ay ku kala xiiso badan ayaan daawada kula wadaagi doonaa haddii ay tahay markii koobaad soo boqotay channelkeena calanka TV subscribe oo furo gambalelka si aad noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena aan ku bilaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu xalay kulan la qaatay qaar ka mid ah xildhibaanadii nabad iyo nolol u soo baxay ee doorashada iyadoo lagu sheegay 118 xildhibaan oo si toos ah u la kulmay madaxweyne Farmaajo waxaa la sheegay dhawaan inta uu shaacin musharaxnimadiisa in kulan heer caalami ah uu qaban doono qaar ka mid ah inta ugu badan ee xildhibaanada reer waqooyiga iyo 118 xildhibaan oo ay leedahay ama la soo baxday fil Soomaaliya taa oo qiyaas ahaan lagu sheegay inay tahay 170 xildhibaan madaxweyne Farmaajo 170 xildhibaan iska dhaaf hadii uu 100 xildhibaan uu kulan la qaato iyadoo doorashada baarlamaanku aysan dhamaan waxay taa ka dhigan tahay in uu haysto xildhibaanadii ugu badnaa oo aan weli musharax madaxweyne helin Xasan Sheekh Maxamuud oo ka tirsan musharaxiinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ee xilka ugu sareeya dalka ayaa markii madaxweynaha ahaa doorashada habeenkii ka horeeyay ayuu kulan la qaatay 100 xildhibaan taa oo mucaaradka dadka ku ahaa niyad jabisay hadaba maxay daawada adiga kula tahay hadii madaxweyne Farmaajo baarlamaanka doorashadiisa oo wali soo gabagaboobin xildhibaano badan ay harsan yihiin sida magaalada Gaalkacyo qaar ka mid ah iyo Jowhar iyo sidoo kale Garbaharey uu soo bandhigo 172 xildhibaan waa arrin aan inaba caadi ahayn aan horena uga dhicin arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidoo kale awood cusub ee la soo baxday nabad iyo nolol hadaba qorshahan ayaa la wadaa marka kulankaasi dhaca kadibna madaxweyne Farmaajo ayaa si toos ah u shaacay doona inuu yahay musharax madaxweyne welina kuma soo dhawaaqin ilaa ay hadda inuu taagan yahay xilka musharaxnimo ee ugu sareeya dalka dhinaca kale qaar ka mid ah saraakiisha ugu muhiimsanaa ciidamada ahlusunna wal jamaa oo hogaaminaya Sheekh Shaakir ayaa intooda ugu badnaa
ilaa shalay maanta isu soo dhiibayay saraakiil dhowr iyo 10 ayaa maanta isu soo dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halka shalay la sheegay dhowr sargaal oo kamid ah booliskii hore ee dowladda inay isu soo dhiibeen xalay ayaa la sheegay qaar kamid ah saraakiishaasi in madaxtooyada maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb loogu sameeyay kulan casho sharaf iyo soo dhaweyn ah sidoo kale lagu dhiirigeliyay maadaama ay ka soo laabteen ururka Ahlusunna wal Jamaa madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa la sheegay inuu qorshe ka damacsan yahay isagoo saraakiishani xilka ka qaadi doona sida darteedna ka dhigi doona dad shacab ah maadaama aan boqolkiiba boqol la aamini karin oo ayagu ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku biireen urur diimeed kamid ah ururada ka dhisan dalka Soomaaliya ciidamada Ahlusunna wal Jamaa ayaa maalinba maalinta ka dambeysay soo kala goosanaya kadib markii ay duurka ku daaleen dhalinyarada qaarkoodna ay si toos ah ula soo goosanayaan gawaari gaadiid iyo hub qaali ah qaar kamid ah dadka soo goosta ayaa la sheegay inay wateen gaariyaal iyo dhowr BKM oo kamid ah qoryaha ugu muhiimsan ee Soomaaliya looga dagaalo waana hubka isticmaalayeen ciidamada Ahlusunna wal Jamaa Sheekh Shaakir ayaa la sheegay inuu xalay isaga baxay deegaanada Bool isagoo ku wajahan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland halka ayaana la sheegay inuu diyaarad ka raaci doono isagoona socdaalkiisu uu yahay inuu gaaro dalka Kenya mucaaradka ayaana Kenya isugu aruursanaya inuu carar ka yahay maamulka Galmudug ama uu sidoo kale ka cabsaday saraakiisha goosanaya ayaan la kala aqoon balse war wuxuu soo bixi doonaa markii uu tago halka uu kulamo la yeeshay mucaaradka dhinaca kale xalay waxaa kulan yeeshay madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo taliyaha ciidamada BSF Diyaano kulankaasi oo ku guuleysteen ismada maamulka Puntland inay wada hadashiyaan labada mas'uul oo isku khilaafsan xilka qaadis iyo arrimo kale oo aad xasaas u ah kulanka oo dhowr saacadood qaatay ayaa la sheegay in la isku khilaafay kadib markii Saciid Cabdullaahi Dani ku adkaystay marka hore inta aan la wada hadlin xilka qaadista uu ogolaado Diyaano halka Diyaano isna uu ku adkaystay inta aan wada hadalka la bilaabin in Saciidna uu ogolaado baaqi odayaasha ee ahaa in xilka loo daayo Master Diyaano haddaba kulanka oo saacado qaatay ayaa wax ka soo baxay habeeraatay injirin maadaama labada dhinac mid tanaasulo inta uu soo jeedin balse Saciidna ayaa bogaadiyay in kulanku uu sii socdo sidoo kalena waxa uu sheegay in ay doorashada qoraaleyso waqti uu ku yahay arrintan la soo gabagabeeyo si doorashada u dhacdo iyadoo siyaasiyiinta qaar ay sugayaan kuraastooda halka qaar kamid ah ay lumiyaan xilwaan Sakariye iyo Wasiir Jamaal ayaa ku sugan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyagoona doonaya in baarlamaanka kuraasta ay ka leeyihiin ay halka ka soo qaataan Saciidani ayaa magaalada Boosaaso dhowr maalmood ku sugan iyadoona wada hadallada BSF iyo isaga ay waqti qaateen waana mid kamid ah dhaliilaha ay u jeedinayaan dadka ka soo jeeda deegaanada Puntland ee Saciidani ku sheegay inuu ku fashilmay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka gobolka xukumo dhinaca kale xaaladda magaalada ka yifi caasimadda Ukraine ayaa laga deerinayaa kadib markii dhowr maalmood ay madaafiic si xooli ah ugu socoto boqolaal qof oo shacab ah ayaa la sheegay ku dhamaadeen halka madaxweynaha dalkaasi uu ku sugan yahay difaaca hore dagaal culus ayaa u dhaxeeya labada ciidan iyadoo maalmihii hore jab xoog la gaarsiiyay ciidamada Ruushka balse hadda arrintu waxay noqotay inay isticmaalaan madaafiic Ruushka ayaa sida loo mareynayay ka taag daran marka la fiiriyo rajada ay marka hore qabeen maadaama ay maalmihii koobaad qarka u saarnaayeen inay qabsadaan magaalada caasimadda ah ee Kyiv xalay ayaa la sheegay in ku dhawaadeen ay gacanta ku dhigaan magaalada Kharkiv oo iyadana ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi dagaalku aad ayuu u sareeyaa madaafiic ayaa loo adeegsanaya dadka shacabka ah dalka waxay nooga wararkeena ugu dambeeyay hadii tahay markii koobaad soo booqatay channelka Calanka TV subscribe oo furo gambarka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena